السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة جبتك سؤال جنال كيف شو برنامج كان يا قدس جماعة يوسف بن الله طبعا كفلوب أي برشلونة كوكا سارت مركانا عايشين شيء جد بحين ينسوق جديدنا وحنا أركان طبعا كي كل ما تاريخ برشلونة صار عشان ترى يعني برنامج يوسف بن الله بس كنت منادى يعني قبل أنا بس أنكار مريض oo bixin kooban sanado badan Barcelona ayaa waxa ay haysatay ciyaartoy u badan wadanka Spain oo talented ah waxaana ay ka yimaanayeen akademiyada kooxda kubadda cagta Barcelona oo kamid ah akademiyooyinka kubadda cagta ugu fiican ee ka soo baxaan ciyaartooyda ugu tayada badan ee kubadda cagta waxaana kamid ah Lionel Messi, Xavi Hernandez iyo Andrés Iniesta dhammaantood ka yimaadeen akademiyada kooxda kubadda cagta Barcelona mar walbana Barcelona ayaa ahayd koox ku dhisan ciyaartooyda ay soo saaratay da'yarka ka imaada akademiyadooda waxaana ka soo baxay ciyaartooy Barcelona koobab iyo guulo iyo sumcado badan ku gaaray si walbaba ha ahaatee sanadihii dambe Barcelona ayaa bilowday in magacyo waaweyn oo qaaradda Yurub ay suuqa ka keensato si ay u caawiyaan ciyaartooyda da'da yar kooxda xeradooda tababarka ka imaada khibradoodana ay ugu caawiyaan si kooxda ay u sii xoogeysato safkooda waxaana ka mid ah ciyaartoydii Barcelona lagu xoojinayay magacyada waaweynaa ee khibradda laga doonayay si ay da'yarta u kaabaan Ronaldinho, Johan Cruyff iyo Luis Figo dhammaantood baa sare waaweyn oo kooxda soo qaadatay isla markaana kooxda guulo waaweyn la gaaray laakiin kooxda Monegasque Catalan ayaa sameysay saxiix kale oo suuq ah iyaga oo kooxda kusoo biiriyay ciyaartoy dhowr ah kuwaas oo ka mid yimaada laakiin badankoodse kooxda la qabsan waayay isla markaana flopyo waaweyn ku noqda kooxda booska tobnaad waxaa ku jira Alexander Hilb xiddigan ayaa u dhashay wadanka Belarus Alexander Hilb ayaana kooxda Catalan ka soo qaateen Premier League dalka iyo kooxda ka tirsan Arsenal adduun gaaray 15 milyan waxa uu kooxda markii uu kusoo biiriyay sheegay ereyo cajiib ah waxa uu yiri waan jeclahay kooxda waxaan siin doonaa wax walba oo aan u sameyn karo iyo qaab ciyaareedkayga ugu cajiibsan ayay kooxda kusoo bandhigi doonaa waana ereyada soo jiitay maamulka kooxda kubadda cagta xiddigani ayaana se kooxda ku guuldareystay ku ciyaartay Camp Stadium 19 kulan ayuu kooxda u saftay Hilb ayaa qab maaha kooxda ay isaga direen kooxo dhowr ah ayaana la doonayay in Hilb amaah lagu siiyo inkastoo uu diiday in amaah uu ku aado Inter Milan waxaase ugu dhaqaaqay kooxdiisii hore ee Bundesliga ee Stuttgart ayuuna xiddigan ka tegay 6 koox oo kala duwan ayuuna u soo ciyaaray 4 sano gudaheed waa 33 haatanna ka ciyaara horyaalka dalka Turkiga waxaana loo arkaa kooxyadii ugu waaweynaa ee kooxda soo maray ay shansiga iyo shiigida lahayn booska tobnaad ee ku jira sagalaad waxaa ku jira Joao Roman Welmi Argentineskan kubadsameeyaha ah ayaa isagu loo doorbiday inuu bedelo Hilb oo kooxda ku falgaroobay balse isaguna booskii Hilb ayuu maray inkastoo kooxdii labaad ee uu u dhaqaaqay uu bandhig cajiib ku sameeyay Barcelona uu ku soo dhalaalay waxay ka soo qaateen kooxda Bournemouth 2004 adduun gaaray 12 milyan Welmi ayaa ku dhawaaqay kadib in kubadda cagta isaga fariistay waxaana uu ka tegay qaaradda Yurub isagoo ku beeray horyaalka dalkiisa hooyo ee Argentina Barcelona waxay ka filaysay ma uusan sameynin waxaana oo isagu u dhaliyay 4 gool oo qura 44 gool oo kooxda u saftay Real ayuu ku biiray 42 gool ayuu u dhaliyay 119 gool oo u saftay kooxdaas ayuuna ku soo dhalaalay isla markaana cajiib uu ku noqday xilligaasna Luis van Gaal ayaa kooxda hogaaminayay waana flobyada taariikhda ugu xun ee kooxda soo maray ee shigiday sharaxaad aan lahayn booska sideedaad waxaa ku jira Christian ayaa kooxda la soo fiixatay waxa uu ahaa ciyaaryahan Samuel kooxda ayuu ku soo inkasta oo uusan noqon sidii ay kooxdu rabtay ama ayaana kooxda looga diray waxay ka soo qaateen kooxda ay kasoo duugaaray 14 milyan Benfica iyo amaah lagu siiyey 5 koox oo kala duwan ayuuna xiddigan u soo ciyaaray 5 sano gudaheed Barcelona ayuuna awoodi waayay xitaa hal kulan inuu ka soo muuqdo Benfica Fiorentina Santos Rosario iyo sidoo kale Corteva ayuuna soo maray waxaana uu ahaa mid ka mid ah flobyadii ugu xumaa ee Everton soo maray inkastoo dhaawacyo ay la degeen haddana waxaa loo arkaa flob shigid iyo shinsiba aan lahayn toddobaad waxaa ku jira Giovanni Debretsion waxa uu ahaa xiddig khadka dhexe ka ciyaara kaas oo ka yimaaday kooxda wadanka Brazil ee Rosario adduun gaaray 22 milyan
Giovanni dhibaato weyn ayaa qabsatay markii uu kooxda yimaado waxaana ku qasbanaaday kooxda uu ka tago maadaama uu la qabsan waayo Hull City iyo ku biiray xiddignii Barcelona ayuuna maray wadadii ciyaartoydii hore ugu horeysay kooxda la qabsan waayay isla markaana floobyada ku noqday 12 kulan ayuu kooxda ka soo muuqday xiddigan khadka dhexe hal gool oo qura ayuuna u dhaliyay waana uu ku guuldareystay kooxda Carles Rexach ayaana kooxda Barcelona xilligaa hogaaminayay xilli ciyaareedka xigana 5 kulan oo qura ayuu Barcelona u saftay Giovanni ayaana kadib kooxda isaga tegay waxaana uu ciyaaray 10 sano gudaheed 8 kooxood kooxda Hull City ayuu u ciyaaray isagoo Hull City kusoo dhalaalay isla markaana cajiib ku noqday kooxda Tigreska inkastoo uu xitaa kooxda u suurageliyay in iyaga oo heerka labaad jooga uu horyaalka koowaad ku soo celiyo Barcelona ayaana ka mid ah kooxaha ciyaartoy waaweyn soo qaadata haddana ay ku fashilmaan waana wax kooxdani inta ugu badan lagu arko 10kan ciyaaryahan shanta ugu horeysana idiin soo gudbinaya booska lixaad waxaa ku jira Philipp Kristenball waqtigiisa kooxda Barcelona waxa uu ahaa mid hami badan laga lahaa isla markaana neenaaso badan la siiyay Kristenball ayayna kooxda Barcelona kala soo socdeen kooxda Liga A dalka Brazil ee Monaco adduun gaaray 17 milyan waxaana si weyn loogu sheegay inuu ahaa bedelka Lilian Thuram balse kooxda ay ku guuldareystay waxaana uu noqday mid flop weyn ku soo baxa sheegid iyo shansiba ayuu lahaan waayay oo waxa uu noqday xiddig aad u guuldareystay kaliya 31 kulan ayuu kooxda u saftay xiddigan ayaana markii dambe noqday mid qiimihiisii aad u dhacay macallin Van Gaal ayaana xiddigan aad cadaadis u saarayay maadaama systemkiisa uu aad ugu fashilmay waana ku guuldareystay inuu kooxda mid cajiib u la qabto Barcelona ayaana yeelatay system cusub oo ay kooxda ku ciyaarto kaas oo ah 3 difaac iyo 4 ka sii horeyso mana uusan noqon mid lala jeclaysan karo systemkaas cusub ee Barcelona Kristenball ayaana kooxda markii dambe qaabilaasha isaga tegay hal ciyaareedkii xigana Premier League ayuu ku biiray kooxda Fulham 2008 waa flobyadii ugu weynaa ee Barcelona soo maray 10kii flob ee ugu weynayd ee kooxda Barcelona soo maray taariikhda oo shantii ugu horeysay isu gudbiyay waana ciyaartoy sheegid iyo Chelsea waa kooxda rajooyinkii iyo sidoo kale lacagihii ay ku qafatay isla markaana shakhsiyadu jiray waxaan barnaamijka xogaa xaqada isboorti waa tartan iyo shanta kale dad uu ku doono waxaana iga tagayaa qaybta kale barnaamijka sidaas inuu